ardayda sanadkani ka qalin jebinaysa 2025 koolajka caafimaadka ee Muslim College oo kor u dhaafaya 150 arday ayaa maanta u fadhiistay imtixaankii u dambeeyay practicalka oo ay ku qalin jebinayeen ardaydaasi. magacaygu waa Iida Maxamed Dubed waxaan muddo 2 sanadood dhiganay dugsiga culunta caafimaadka ee Muslim College ma sha Allah barakallahu maanta emotional baan ahay farxadaydu waan daran sababtoo ah waxaan ahay maama 40 jira guluubaan ka weynay baan wax la baranayay guushi baan maanta hantiyay alxamdulillah imtixaankuna sidaan rajaysanay uu noo fududaa waxaan bartaa fakalka anigu midwife-ta oo waxaan ahay maamo umulisaa fakalka midwife-ta waan rajaynay insha Allah bulshadayda iyo dadkaygaba inaan ku caawiyo garab ugu noqdo maadaama caafimaadku uu yahay waxa ugu muhiimsan ee cid lagu caawiyo bini'aadanka lagu caawiyo waliba anaga shaqadayadu waabay ka sii firfircoon tahay laba qof baanu shaqadoodii haynaa maamo iyo ilmo baro iyo adduunka ku cusub baanu kala badbaadinaynaa iyo maamadii oo warshada magacaygu waa Yasmin Mawlid Aadan waxaan maanta ka baxay kulliyadda nursingka Muslim College waxaan soo dhameeyay hayaankayga waxbarasho 2 sano soo socday waxaan dhameeyay Muslim College waxaan qaaday kulliyadda midwife anigoo u baranayay si aan hooyooyinka aan u caawiyo hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan ku faraxsanahay hayaankayga waxbarasho inaan maanta soo gabagabeeyay aad baad u mahadsantahay magacaygu waa Faarax waxaan ka baxay Muslim College waxaan bartay kulliyadda midwife waxaan u bartay saan ugu caawiyo hooyooyinka Soomaaliyeed sidoo kale hayaankayga waxbarasho maanta soo gabagabo waan ku faraxsanahay magacaygu waa Muwaay Maxamed Xasan waxaan ka socdaa Muslim College waxaan dhameeyay maanta hayaankayga waxbarasho waxaan bartay midwife waxaan bartay saan ugu caawiyo hooyooyinka dhibaataysan magacaygu waa Ayaan Aadan Wacali waxaan dhameeyay maanta fakalka la dhaho nursingka waxaan u bartay nursingku waxa weeyaan baahiyaha gaarka ee yani bulshada u qabta baahida gaarka darteed baan u bartay maanta waxa weeyaan maalintii aan breakfast-ka gelinay taxanadan ku soo gabagabeynayna hayaankayga waxbarashada soo socday 2 sano halkan waxaan uga mahadnaqayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo gaarsiiyay maalintan oo kale sidoo kale marna waxaan iloobay macallimiintaydii waalidkay iyo dhammaan ardaydii la dhigaysay galaaskaygaba waxaan leeyahay waan wada guuleysanay dhamaanteena insha Allah waxaan noo rajaynayaa hayaan kalo cusub oo waxbarashadeena ku sii wadano maanta waxaan ka qalin jebinaa ama aanu dhameynayna fakalkayga gaar ahaan midwiferyga aad baan u faraxsanahay farxadeedana lama soo koobi karo magacaygu Hodan Yaasiin Cali waxaan maanta soo dhameynay hayaankayga waxbarasho Muslim College sidoo kale waxaan nahay maxay hayday fakalka midwife-ta taasoo baahi badan bulshadeena u qabto Yaxya Muuse Ibrahim Nairobi warbaahinta qaranka Soomaaliland Hargeysa